السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان نوع مقال كمذا مقال ذي وهراء قري فهد ياسين حاج داهر تليه هراء هيد سردون كأنا بتسجد قرن كالصومالية النيسا وقت يدي وكمدها تفترياش الشبكة صومالي توك مقال كان وفهد ياسين ولبحي قيبهن أي ضلكي ضياعي وحو قري سديد يلا باطنكي بشي مارج سنة يلا بدكون إيرشن وحو كجهد ليا دور قيبود وكمذا بالشدة أو كتل ماميو إن أي ضياعين مسؤولية دي كجاء الدنيد qarankooga Soomaaliya isagoo arrimahaasi ka hadlaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu yiri dalkan waa dayacan yahay yaa dayacay yaa noo maqan ragii dalkan lahaa xagee aadeen xadaarad ay shacabku leeyihiin miyaysan jirin waxaad arkaysaa adigoo mararka qaar inkiraya in aad tahay Soomaali waana goorta uu qof ajnabi ahi ku dhaho war ma dalka dhowr iyo 10 sano dawlad la'aanta ah ayaad ka dhalatay sawtiiraanya ma ahan arintaasi waxa dalkan dayacay dadkiisii waxayna kala yihiin dhowrkan nooc aqoonyahankii oo u qaybsamay laba qaybood kow waa qayb xoghayayaal u noqday dagaal oogayaashii oo u diyaariya warqadaha qaybaha ay khudbooyinka ka akhrin doonaan welibana aad arkayso iyagoo ku qanacsan marka aad damacdo inaad ku canaanatana waxa uu ku odhanayaa duruufta ayaa nagu khasbaysa in aan sidan ku noolaano laakiin waan ogahay in ay wax xun tahay iyo qaybta labaad oo ah qayb bannaanka ka istaagtay oo isku qancisay in haddeer dalkan la dayaco oo laga dhex baxo waxay sidaas ugu marmarsiyoonayaan dalkii haddeer dad xun ayaa ka taliya innaguna kuwaas wax lama qaybsan karno sidaas awgeed ilaa la soo gaadho dawr aan wax ka qaadan karno ama wax ka qaban karno waanu ka gaabsanaynaa qoladaasi haddii ay ahaayeen kooxdii aqoonyahanka ahaa qolada labaad ee uu Fahad Yaasiin ku tilmaamayo in ay dayaceen doorkii kaga aadanaa arrimaha Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay culimada wuxuu yiri culimadii waxay u qaybsameen iyaguna 3 qolo qayb intii dagaalkii socday fatwada ku kaalmayn jiray hadba dilaha ay isku beeshay yihiin wuxuu ciidanka u sheegay jihaad ayaad ku jirtaane xoolaha reer hebel dhaca ciidankooda laaya rabbi ayaa ajir idin siinaya reerkaas ka adkaada iyo qolada labaad oo ah qayb dagaaladii sokeeye ka qayb qaadatay oo dad muslimiin ah wax ka laay iyaga oo islaha diinta u gargaara oo magaca Ilaahay kor u qaada taasi waxay dhashay in sheekhi loo arko mid kamid ah dadka dilayaasha ay Soomaalidu kaasato qolada saddexaad ee culimada kamid ah ee dayacay iyaguna doorkii Soomaaliya waxa uu ku tilmaamayaa qayb aan wax ka tarin siyaasadda waxna dhimin waa noole aan dhaqdhaqaaq ku dhex lahayn siyaasadii dalkiisa hadduu dagaal gali lahaa in ay xaraam tahay ayuu og yahay hadduu wax islaaxin lahaana wuxuu isleeyahay dadkan waxba ha ku darsan qolo fiican waagii ay timaado adigu wax la qabo wuxuu la mid yahay qaybta labaad ee aqoonyahanka ee kor ku xusan qolada saddexaad ayuu Fahad Yaasiin ku tilmaamayaa marka laga yimaado doorkii aqoonyahanka iyo culimada qolada saddexaad waxa uu ku sheegay ganacsatada oo iyaguna uu yiri dalkii ay dayaceen ganacsatadii ayuu isaguna u sii kala qaaday dhayr qaybood wuxuu yiri qayb ganacsatada kamid ahay mas'uulba kama aha dibkii dalkan ka dhacay oo dhan qayb mas'uulba ka ah dibtii dalkan ka dhacday oo dhan iyaga ayaa bixiyay dhaqaalihii ay dilayaashu wax ku dilayeen iyaga ayaa u sahlay in uu kala laalusho qaybaha kala duwan ee Soomaalida waa kuwa ugu dambiga badan wixii Soomaali ka dhex dhacayay oo dhan dadilo walba waxa soo saaray lacag wax ku dile cidooda ah qolo labaad oo ganacsatada ah waa qayb sii tirtirtay intii ka hadhay noloshii bulshada waxay dalka keeneen wax kasto dhacay oo cunto ama daawo ah waxay foojiriyeen wixii nolosha ay ku xidhnayd sida lacagta baasaboorka waxay bilaqaysteen dhuxushii dalka birihii dalka ee scrapka ahaa xoolihii aan la dhoofin jirin kuwan waa cunsur ka xun wiilasha qoryaha sita qolo saddexaad oo ganacsatada ah Fahad Yaasiin waxa uu ku tilmaamay kuwan waxaanu yiri qayb noloshooda ku adkaatay weeyi waxay cunaan mooyee aan cid kale dan kala hayn dabcan xalaal ay cunaan xumaana kulama kacaan shacbiga qaybta saddexaad Fahad Yaasiin ee ganacsatada waxa uu ku tilmaamay qayb noloshooda ku ekaaday waxay cunaan mooyaane aan cid kale dan kala hayn dabcan xalaal ay cunaan xumaana kulama kacaan shacbiga intiisa kale waxay sagabeen in ay dalka wax ku leeyihiin oo ay mas'uuliyadi ka saaran tahay waa nibantooda mooyee aan dal oo dhan dan kala hayn qaybtii saddexaad ee culimada haddii uu intaa kaga gudbay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu soo qaadanayaa qaybta afraad oo leeyahay siyaasiyiinta ayaa iyaguna kamid ah kuwa dalkooga dayacay waana 3 qolo iyaga laftoodu ay yiri qayb heshay fursad dayacan oo ah
kuwoodii aan damiirka lahayn laakiin la nool shacab ka sii damiir liita oo isagaas ka dhiganaya ninkii matalayay beesha. daddilahani qofka uu dilo beesha ayaa magtiisa bixisa, haddii isaga cid laga dilana beesha ayaa difaacda. wuxuu isu haystaa ninkii ilaalinayay dantii qabiilkiisa, tolkiisuna waxay u haystaan nin beesha difaaceeda u taagnaa. hawsha uu u hayo oo dhanna waa in uu daddilo ama beesha laga dilo. 2 qayb wax qaban lahayd waxna tari lahayd laakiin kuwan dabagalay oo iyaga la shaqeeya, wax u qora, shirarka uga hadla, u sheega sida uu wax ku noqon karo. taasina waxay keentaa isaga oo iska dhaadhiciyey adigu maanta laguma rabo ee midkan iskala soco oo adna noolow, isna kollayba waxba gaadhi maayey sii lugo. qayb 3 oo ka mid ah siyaasiyiintu waa qaybtii wax matarayaasha ahayd. waa kuwii aan kor ku soo sheegnay, ishay wax ka fiirsadaan iyaga oo og inaysan dalkooda wax u qaban ayay sugayaan in loo yeedho oo la dhaho kaalaya na horkaca, idinkaas siyaasadda nagu dhaamee. wuxuu leeyahay anigu markii la gaadho doorasho xor ah ayaan siyaasadda soo gelaya, laakiin inta ay wax waliba qabiil yihiin sharaftayda ayaa ka weyn in aan magac qabiil ku shaqeeyo. qolada ugu dambaysa ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu waqtigaasi ku tilmaamay kuwii dayacay ama qaybihii bulshada ka mid ahaa ee dayacay dalkooda, waxa uu ku tilmaamayaa inay yihiin saxafiyiinta. waxaanu yidhi saxafiyiinta oo iyaguna 2 qaybood ah ayaa dalkooda dayacay. qaybta koowaad waa qayb danaystayaal ah oo aan mabda' lahayn, hadba ninkii ay markaas dantooda ku jirto la shaqeeya oo ugu adeega fikrad yar oo cidhiidhi ah, kadibna dadka intiisa kale kula culooba sidaas. waxaad arkaysaa isagoo asbuucba meel taagan, wuxuu la mid yahay tagsiilo uu kiraysto hadba qofkii lacag wataa. kuwani waa baasiinka ugu xun ee lagu shido dabka uu daarayo daddiluhu. qaybta labaad ee suxufiyiinta ahi waa qayb mabda' leh oo sharaxi karta khatarta dadka haysata. waxayse u badan yihiin qaybihii aan kor ku soo sheegnay oo kale, oo ahaa kuwii sugayey in la gaadho meesha uu isagu joogo aqoon ahaan. waxaa jira saxafiyiin badan oo waxweyn tari lahaa laakiin aamusan oo baqaya ama isleh dadkani kuwii aad wax u sheegi lahaydeen ma ahayne wakhtigaaga sug. waxaan isleeyahay dalkan dadka dayacan laguma soo koobi karo qoraal. intaa aan hadda tilmaamayna waa dulmar kooban una baahan in juhdi badan la geliyo oo aad loo falanqeeyo. qof kasta oo aqoon leh ayaa laga doonayaa in uu sharaxo yaa dayacay dalkan. marka aan taas isla meel dhigno ayaan heli karnaa maxaa xal ah. intaas ayuu ku soo koobay maqaalkiisan qaybahan ayaa dalkii dayacay. waa maqaal uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ku baahiyey warbaahinta sanadkii 2005 bishii Maarch 28 kaasi oo kaga hadlayay qaybo bulshada ka mid ah oo uu tilmaamay inay doorkoodii ay ummadda ku lahaayeen iyo dalkaba ay dayaceen.